waxaa la sheegaa idaha bilcaks inuu ka mid yahay hilibada la cuno kan ugu fiican laakiin hilibka gaduudan iyo dadka tashwiishka lagu furay iyo cabsida ay ka qabaan maxad ka leedahay hilibka gaduudan labaan u kala qaadayna qofkaani ma qof xanuunsana oo borotiinka jirkiisa uu dhibaayo gouts ama cudurro lagu soo sheegay miya ma qof mandhiciradiisa xanuunsan yihiina mase waa qof caafimaad qaba hadaa caafimaad qabtid hilibka gaduudan dacwo kuma qabaadna dacwo ma qabtid oo qaadan kartaa cuntada iyo supplementiga haddii aad isla meel dhigto imisa cuntada siin lahayd supplementigaas maxad u reebi lahayd tan koowaad waxay tahay qofka wax cuntada u bedeli kara booskeeda geli kara ma jiraan cuntada way isku dheelitirantaa iyadoo isku dheelitiran oo wax kasto jirkaagu u baahnaay lahbu ilaahay sameeyay ama waxyaabahan supplementiska oo waxyaabo la soo dooray cuntada marka fiirino kaleeto wixii u baahneen oo dhan ku jiro ha ahaado proteiniski oo dhan inta u baahneed oo proteins ah ku jiro haddii maanta qof 2026 raba inuu miisaan iska rido optiono tiro badan ay hor yaalaan hal talo oo aad siinaysid ma jirtaa oo 2026 uga faa'iideysan karo inuu miisaankiisa ku guuleysto inuu iska rido السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا هذا وحن كسو دوينا هدي إلهي يرادو دكتوري سدا وحنا كعد سنينا إن أي مركة هوري نسككين برتو قفك أي تحي شخذ دا iyo halka ay ka howlgasho دكتوري فردوسا كسو دوا برنامج كينا 9 عشو show وما حسنتها كوتش صبريه هذا ugu faraxsanahay in barnaamijkaaga igu casuumtay waan ku mahadsantahay oo kaaga mahad celinaya tan xigta magacayga waa Firdaws Cabdisalaan kasoo baratay medicine jaamacadaha Suudaan kuna takhasustay nutrition and dietetics haatan sanadkii la soo dhaafo idinku howlgalaysay as online doctor ama as online coaching oo dadka waxyaabo badan in la tacaalaya cudurrada chronic-ga dadku u baahnaa inay miisaanka dhimaan dadka u baahnaa in miisaankooda kordhiyaan intaba aad ula soo shaqeynaysay waxa kale oo aan ahay candidate for scope in management of obesity ayadana mar dhow waxay noqon doontaa in shahaadada ugu sareysay laga qaato nutrition kana oo loogu talagalay in dadka obesity-ga qabaan lagu daaweeyana candidate-keeda ahay oo mar dhow ay suuragelayso Ilaahay yaraa waa mahadsantahay haddii aan dul istaaga meeshaas xoogaa yar dadka ma u jilcin kartaa obesity-ga waxa uu yahay obesity-ga waxa uu yahay waxyaabaha ugu badan ee hadeertaan caalamkeenan cudurka ugu badan ee dadka haya waaye obesity-ga anaga waxaanu u naqaanaa qofka in miisaankiisa inta loogu talagalay anagoo eegayna waxyaabo loo yaqaano BMI oo kaleeto qofka in uu ka sareeyo 40 kaasna waxaa lagu cabiraa qofka anagoo barbar dhigayna dhirirkiisa iyo miisaankiisa anagoo isku eegayna waxaan u baahannahay in ay noo soo baxdo inta looga baahnaa BMI oo kaleeto marka u baahannahay inaan xisaabino inta normalka waxay ka bilaabanaysaa qofka markaan isbarbar dhigno dhirirka iyo miisaankiisa isku eegno wixii ka hooseeya 25 qofka u soo baxdo micnaheedu waxa laga wadaa normalkii uu joogaa healthy weedu haystaa qofkii markuu ka soo baxo 25 ilaa 30 markuu soo gaaro ayadana waxay noqonaysaa qofka inuu noqday overweight 40 wixii ka sareeya waxay noqonaysaa obesity oo qofka wuxuu halis u noqon doonaa cudurro badan oo halis ah oo ku soo wajahan oo caafimaadkiisa wax u dhibi doona taas ku qiimeynaa iyo waxyaabo kale oo badan oo ah cabiro jirka oo aan isticmaalno baaritaano kale oo aan sameeyno waxyaabahaas oo idil waxay noo sheegayaan in qofkan uu ku jiro xaaladii obesity-ga ahayd ee maradiga ahayd ama cudurka ahayd marka haddii aan qaldaneen oo aan fahmay jawaabtaada waxaan dhihi karnaa haddii body fat percentage-kaaga uu 40 ka sare maro dadka obesity-ga lagu tiriyo yaad qayb ka tahay si fiican halkaaga hadduu halkaas yahay obesity-ga lagu tirinaya ما شاء الله thank you very much سؤال labaad ku weydiinaa waxay tahay qofka maanta daawanayo dabcan na hor fadhiya showgan daawanayo dhamaadka videogan maxaad isleedahay uu kagala tagi doonaa ama uu fahmi doonaa qofka videogeena maanta daawanayo wuxuu faa'iidi doonaa waxyaabo badan wuxuu baran doonaa si caafimaad leh sida miisaankiisa u dhimaya iyo asagoo adeegsanaya waliba cuntada iyada dalka ee aanan adeegsanin wax banaanka laga keenay ama waxyaabo qaali ah sida dadka badankooda ay ka cawadaan haddii marka su'aasha ugu horeysa aan u gudubno insha Allah taala sidee u aragtaa xiriirka ka dhaxeeya cuntada iyo caafimaadka guud ahaan ee qofka si fiican waa mahadsantahay su'aasha ay weydiisan waa su'aal aad muhiim u ah cuntada iyo caafimaadka xiriir aad u culus ama u adag ka dhaxeeyo mar allaale markay cuntadaada hagaagto markastoo caafimaadkaaga hagaaga waayo mar allaale markay cuntadaada hagaagi weysan markastoo caafimaadkaaga uusan hagaagsanayn waayo heerkaas ay labadooda isku xiran yihiin midkood hadduu hagaagi waayo kan kale ma hagaagsamayo oo calaqadaas adaga ka dhaxeyso marka dadka waxaan kula talinayaa waxay tahay marka
in cuntadiisa qofka uu hagaajiyo intii hadhow uu ku qasbanaan lahaa in uu daawo ama cirbado ama isbitaal gelitaankiisa hadda inuu cuntadiisa hagaajiyo laana waxaan dhahnay caafimaadkaaga waxaa cuntadu ku xiran yahay maasha Allah marka dad badan oo waxaa jira isku daya inay miisaanka ku ridaan ayagoo isgaajeynaya haddii aan ku fududeeyana dadkeenan Soomaaliyeed waxay u badan yihiin qofka haddii aad wareysato dhahdo tusaale ahaan maxaa cuntaa inuu ku dhaho coach ama doctoreso aniga waxyaabo yaryaraan iska cunaa cuntada qofka uu isgaajeeya ama starvation mood oo galo maxay caqabado ku keentaa jirka qofka bini aadanka gudaha iyo banaankaba si fiican aad u mahadsantahay su'aashan waa su'aal aad muhiim u ah starvation ama isgaajeesiska qofka inuu u adeegsado inuu miisaankiisa dhimo cawaaqib adag oo caafimaadka xaqiisa ah ayuu kala kulmaa ha ahaado waqti dhow ama ha ahaado waqtiga dheer intaba waa kala qaadaynaa marka waxaan ka hadlaynaa mid short term ama waqtiga dhow ah waxa ugu horeeya qofka uu la kulmaayo waxay tahay in tan ugu horeysa tahay waaba tii uu rabay inuu miisaankiisa lumiyo laakiin asagoo moodaya inuu dufan lumiyo bilcagsi waxay tahay wuxuu lumiyo waxa waaye biyihii jirkiisa ku jiray mineralska iyo macdintiisa waxa kale tuu lumiyo waxa waaye murqihiisa oo muhiim u ahaa jirtaankiisa ama caafimaadkiisa tan labaad ee laga helayo waxay tahay oo gooni u sheegayno muscle ama murqihi inuu qofka lumiyo energy-giisa iyo wixiisina inay meesha ka baxayaan tan saddexaad waxay tahay qofka ku imaanaysa in nafaqada jirkiisa ay ku yaraato laana waxaan sheegnaa cuntada badankeed nafaqada badankeed waxaan ka helnaa cuntada qofka hadii cuntada uu ka taga ama uu isbaahiyo waxa imaanaya mineralskiisa inay jirkiisa yaraadaan vitaminskiisa jirkiisa inay ku yaraadaan waxa soo dhan waxay keenayaan qofka inuu cudurro degdeg ah waliba waqtigaas uu la soo kulmo tan xigta ugu dambaysa waxay tahay short term kan ka hadlayay slow metabolism wax loo yaqaan metabolismkiisna slow down sameeyo metabolismna maxaa la metabolism waxa la habka jirka uu u isticmaalo cuntada suu energy uga soo saaro marka cuntada u baahnad in energy lagaaga saaro oo la soo isticmaalo haddii ay jirkaaga ku yareyso jirkaaga wuxuu galayaa inuu iska ka difaaco wax kasto jirkaaga soo gal uu keedinaya hadhow waxa imaan doonta marka warkii ahaa miisaankayga wuu istaagay miisaankayga ma dagaayo oo adaa jirkaaga soo baahaysa adaa metabolismkaaga slow down gareeyay tan xigta markaan ka hadalno qaybta long term kan ugu horeeya waxa waaye chronic risk inuu jirkaaga ku imaado macnaheedu waxaan ka wadaa cudurro wadnahaaga inaad taabatid in kiliyahaaga aad wax yeeshid waxa soo idil waxa keenay starvationka jirkaaga ay gelisay tan xigta waxa waaye ayadana oo hadeertan aan sheegno oo ka tirsaneed long termka waxa kale to kamid ah in mental healthigaaga hada jirkaaga ay gelisay waqtiga fiir marka cunto caadi ah cunaysid farxad gelisa cunto jecesha marka cunaysid sidoo kale to mental healthigaaga saameynaysa oo degan yahay laakiin marka gaajeysid maxaa imaanaya marka gaajeysid in depressionka oo imaado anxiety-ga imaadaan waxa soo idilne waxa sabab ah in jirkaaga ay gaajeysay tan saddexaad ee kamid waxa waa hormonal imbalance u badi gabdhaha kale to dheecaanadaadii oo dhan inay wada qasmaan dheecaanadaada dufan ay ka sameeyso protein ay ka sameeyso jirkaaga haduu protein iyo dufanka inta loogu talagalo normalka aad uusan haynin waxa imaanaya imbalances dheecaanadaada kii dheregta kii baahida wixii idil baqal qalad gelinaysa taasna waa arin ay tahay in aad looga feejignaado laano dheecaanadan habeentooda hadhow aad ay u adkaan doontaa tan xigtaa waxay tahay wax loo yaqaan refeeding syndrome jiro qofku markuu waqti badan baahnaado oo cuntada dib loogu soo celiyo in jirkiisa biyihii oo dhan gudaha uu qaadayo taasna mushkiladu waa riski ah marka qofku waxay tahay inuu iska jiro oo way sax ah miisaankiisa uu rido asagoo aanan adeegsanin starvationka ama iskaajeenta maasha Allah su'aashan hadda aan ku soo wado dabcan hadda dalkan aniga aan joogo Mareykanka supplementiyada ama waxyaabahan loo isticmaalo qofku inuu miisaanka ku rido waxa lagu kharash gareeyaa $1 billion lagu kharash gareeyaa hadda waxaan arkaynaa in dalkii iyo meel walba Soomaalidu ay degan tahay supplementiyadu ay aad ugu soo badanayaan gaar ahaan kuwa loo isticmaalo in miisaanka lagu rido haday noqon lahayd fiber supplement iyo haday noqon lahayd waxyaabahan sida loo isticmaalo pre-workout ko kale ama haday noqon lahayd fat burner ko kale cuntada iyo supplementiga hadii aad isla meel dhigto oo lagu dhaho boqolkiiba wax percentage ah ka bixi imisa cuntada siin lahayd supplementigaas maxad u reebi lahayd mase kamid tahay dadka inta badan ama dhaqaatiirta inta badan supplementiyada qaar ee miisaanka lagu rido dadkooda u soo bandhiga ama kugula taliya waa mahadsan tahay su'aashaas waa su'aal muhiim ah ayadana supplementiga iyo cuntada ma isku bedel lahayd ama ma isku dooran lahayd mid kasta waxaan sheegaynaa faa'iidadiisa iyo faa'iido daradiisa ama qasaarooyinka uu leeyahay tan koowaad waxay tahay qofka wax cuntada u bedeli kara booskeeda gali kara ma jiraan cuntada way isku dheeli tirantaa ayadoo isku dheeli tiran oo wax kasto jirkaaga u baahnaay leh buu Ilaahay sameeyay
ama waxyaabahan supplementiska waxyaabo la soo dooray waa macnaha oo gooni loo soo qaatay cuntada markaa fiirin oo kaleeto wixii u baahneen oo dhan ku jiro ha ahaado maxaa la dhahay proteiniski oo dhan inta u baahneed oo proteins ah ku jiro haday ahaato fiberki way ku sameysantaa cuntada baalasheeda iyo waxeedii leedahay mineralski ha ahaato badankiisa cuntadii u soo badan yahay food groupski 5 ka ahaay oo dhan markaa qaybino ayadoo dhameystiran cuntadan ka helaya halka supplementiyada ay noqonayso in qaybo yar oo la soo qaybta qaybo yar oo la soo dooray kaliya ay yihiin marka su'aasha ah cunto ma ku bedeli lahayd supplement waa maya supplementiyada waxay noqon doontaa mararka qaar in loo baahan doono laakiin ma ahan markasta in loo baahan doono waxa ka horeeyo cuntada in la saxo cuntada in la hagaajiyo cuntada in la tayeeyo kadib waxyaabaha qaarkood dadka qaarkood hadhow waxay noqon doontaa inay u baahdaan supplement kaasoo kale waa isticmaali karaa supplementiga laakiin asaasi ma ahan marka hadda waxaan gudaha u galayaa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin marka oo mid kasta kan aan ka helay kan aanan ka helaynin saa hor u sheegnay cuntada waxaan ahaan spectrum nutrient leedahay oo ahay nutrientigeedo dhan uu dhameystiran yahay fiberkeeda proteinkeeda dufankeedii asagoo waliba aanan ka cabsanaynin inuu badan yahay ama inuu yar yahay halka supplementiga cagsi uu yahay oo aan ka cabsanayo hadii aan badiyo in toxicity ay iga imaado hadii aan yareeyane in intii ugu filneed aanan ka qaadan laakiin cuntada hadaa badisid waxa kaliya kugu soo kordhay waxa taa just calories ina badisid ma la dhahayo waa ku sumooday protein badan oo cuntada uu ka qaado ku sumooday ma la dhahayo laakiin supplementiga banaanka ka qaatay jirkiisa wax ka dhimay waa la dhahayaa taas waa mid koowaad tan xigta waxa waaye balance diet markay tahay cuntada way dhameystiran tahay food groupyada hadda aan sheegnay waa supplementigana saa hor u sheegnay waxaan dhahnay waa in la soo dooray oo ma dhameystirna tan xigto fiber contentska marka fiberka ay ka kooban yihiin waxyaabahan supplementiyada ah way cufan yihiin macnaha way cufan yihiin waxaan ka wadaa way culus yihiin laakiin halka cuntada ay tahay ma cusla macnaha jirkaaga way u fududahay wuu qaadan karaa dhib weyn kuma qaadanayo kaasna waxa waa farqi kale oo u dhaxeeya supplementiyada iyo cuntadii markii digestive-ka u imaano qaybta ugu dambaysa markaan fiirinana safety-gana waxaan dhahnay si hadda sheegaynay supplementiyadan lama wada hubo purity-gooda inay wax saafi ah yihiin in dosiskooda inuu saxan yahay iyo waxaan inta meesha ka imaadeen intaba ani ma aqaan macna ayo ha ku qornaato meesha laakiin waxaan ka wada si sax ah qofku uma wada yaqaano halka cuntada ah ogtahay geedka ka imaado meesha ka imaado inta gram ay qaadan kartid inta calorie ku jirta vitaminiska iyo mineraalada iyo macaadinta inta cuntada inta ugu kala qaybsamayso waa garan karnaa kaasna marka u fiirina waxa waaye safety-ga iyo offer iyo maxaa la safety control-ka marka u fiirina waaye saa hor u sheegnay waxaan dhahnay cuntada ina badsatid waxba toxicity kuma keento laakiin in supplement aad badsatid toxicity keenta okay masha Allah qof hadda ku daawanayo oo aanan jeebkiisa xitaa supplementiga aanan kareenin dabcan maanta supplementiyadu waa qaali qaarkood $80 ilaa $90 ay gaaraan waana qayb kamid ah qofka in uu ku tashto bil walbo jeebkiisa in lacag ka baxayso uu supplementiga u gooyo qof maanta waxa jiro aaminsaneen inuusan miisaanka iska ridi karin ama caafimaad ahaan jirkiisa uusan dhisi karin asaga oo aanan wax supplementi ah isticmaalin aniga kula hadlaayo ma ihi dadka supplementiga 100% ka soo horjeedo laakiin waxa aaminsanahay supplementigu inuu supplementation yahay sida magaca aad ka arkaysana uu yahay wax un dheeraad ah dheeraadna wuxuu ku yahay mar walba cuntada maxaad ku dhihi lahayd qof maanta jeebkiisa aanan kareenin laakiin qalbiga ay kaga jirto haddii aad supplement heli lahayd miisaanka waad iska ridi lahayd ama jirkaad dhisan lahayd si fiican qofkaas waxaan leeyahay haddii supplementiga aadan heli karin supplementiga aslan muxuu ahaa dhameystir uu ahaa markay cuntada kugu yaraato ama aysan kugu filnaanin oo kaleeto ama waqtigaagu mashquulsan yahay oo kaleeto sometimes mararka qaar un inay u isticmaashid adoo ku dhameystiraya cuntadaada laakiin haddii aad heli kartid inaad cuntadaada dhameystirtid waxaan qabaa aniga supplement inaadan u baahanaynin marka laga soo tago waxyaabaha qaarkood oo cuntadaba ay ku yar tahay oo kaleeto vitaminiski oo kaleeto sometimes qofka jirkiisa markay aad ugu yar tahay degdeg ah ugu baahannahay oo kaleeto inaan soo celino oo xaalado medical condition ay jiraan waa lagu qasbanyaa supplementiga in la qaato laakiin haddii aad heli kartid cuntadaada tayo leh inaad dhameystirtid waxba supplementi uma baahnin okay masha Allah waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo laba nafaqo aad muhiim u ah cuntooyinkeenana laga helo haddii aad fiirisana qayb libaaxa ka qaato qofka inuu miisaan lumiyo proteinka iyo fiberka qofka proteinka iyo fiberka intee in la egaad isleedahay wuu u baahan yahay khiyaas ahaan at the same time na role intee la egi ku leeyihiin qofka inuu miisaan iska rido labada nafaqo si fiican proteinka iyo fiberka
waa laba cunto oo aad muhiim ugu ah qofka hadduu u baahan yahay inuu miisaan dhimo ama jirkiisa uu hagaajiyo murqo uu samaysto. aan ka hadalna mid ka hor mid kasta faa'iidadiisa. kan ugu horeeya waxa waaye borotiinka. Borotiinka wuxuu qayb aad iyo aad muhiim ah ka qaataa jirkeena samaysankiisa. Ha ahaato murqaha samaysankeeda, ha ahaato dheecaanada samaysankooda, waxyaabo maxaa la difaaca jirka antibody-yadiisa iyo idil waxaas oo idil waxay ka samaysmaan borotiinka oo muhiim u yihiin. Hormooniska dheecaanada ee hore u sheegnay qofka inuu dhereg dareemo waxyaabahaas oo idil waxa waxyaabihii oo qaybta muhiimka ka qaadanayay borotiinka. tan kale ugu sii muhiimsan waxa tahay metaboligaaga, jirkaaga waxa ugu badan uu energy ku bixiyo in uu shiido ama uu isticmaalo waxa waaye borotiinka. bal imagine marka inta borotiin qaadatid adoo inay miisaan dhintid u baahan tahay calories badan u baahneed in la gubo, energy-ga lagu gubi lahaa ama lagu burburin lahaa borotiinkaaga in loo adeegsanayo waa wax ugu fiican oo qofku uu sameyn lahaa. taasi waxay ahayd waxaan ku koobaynaa faa'iidooyinkii laga helayo borotiinka. bal dhanka kale ana eegno oo ahay fiberka. Fiberka faa'iidooyinkiisa isaga lama soo koobi karo. Faa'iidooyinkiisa waxay tahay tan ugu horeysa waxa waaye probiotic ama microbiome taada caloosha joogto bakteeriyada caafimaadka qabto aan sheegaynay in uu cunto u yahay tan koowaad. tan xigta waxay tahay in calooshaada uu ka ilaalinayo constipationki iyo inay dhegto ama inay adkaato. tan saddexaad waxay tahay in dadka sokorta qabaa uu yareenayo jirkooda inuu sokorti dhuuqo. طالما cuntada fiber ama qolof ama baal ay leedahay waxa yaraanaya sokorta faraha badneed ee jirka ama dhiigga lagu daraayo yaraanaysa. dadka cholesterolka qaba oo kaleeto sidoo kaleeto cholesterolka faraha badnaa ee dhiigga gali lahaa asagana uu yaraanaya wax yaraanayna waxay tahay fiberki. faa'iidooyinkaas faraha badan leh oo mid kasta aan sheegnay macnaheeda imagine hadaa labadooda isku dartid qof kasta inta caadiga ah markii la eego loo u baahnaa haduu qaato waxa ka dhalan kara qofka jirkiisa inuu miisaankii u baahnaa inuu dhimo, in faa'iidooyinkii uu u baahnaayo dhan oo ahaa haduusan borotiin qaada lahayn ama fiber qaada lahayn wixii uu imaalahayo cudur ahaayo dhan inuu ka magan galo. sokorta controlkeedii qayb ka qaatay, cholesterol controlkiisii qayb ka qaatay, digestive systemkaaga caafimaadkiisii qayb ka qaatay. waxyaabahaas oo idil muhiim heerkaas ay muhiim yihiin. waxaan rabaa markii aan borotiinka iyo fiberka wax yar aan ku laabano cuntooyinka laga heli karo tusaale ahaan maadaama adigu dalka aad joogto aad dalka ka shaqo gasho inta badan dadku waxay dhahaan coach cuntooyinka qaar ee borotiinka laga helo anagu awood uma lihin. cuntooyin dalka laga helo oo aad isleedahay qof kastana wuu awoodi karaa borotiin iyo fiber fiican uu ka heli karaayo ma la wadaagi kartaa dadka? si fiican waa watan ugu fiican ba hawshaas waa hawsha kaliya aanu qabanno. waxay tahay borotiinka iyo fiberka waa kala qaadanaa. borotiinkan waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood. waxaan leenahay borotiin xayawaanada laga helo iyo borotiin geedaha laga helo. marka ku horumarno borotiinka xayawaanada laga helo waa hilibka noocyadiisa oo idil geel ha ahaado, ariga, idaha, lo'di intaba. inkastoo hilibka idaha isugu soo noqon doono intaas waa hilibkii oo xoolaha ahaa, digaagiya kamida, kalluunkiya kamida, caanihiya kamida, ukuntiya kamida. intaas hadeertaan aan sheegno waxaa loo yaqaanaa animal proteins waaye. waxaan eegaynaa hadeertaan plant proteins ama geedaha proteinska. digirta noocyadeedu idil waxay ka tirsan tahay proteinskeeni waa digirta ha gaduudnaato, ha cagaarnaato, ha weeweynaato, ha yaraato, noocyadeedu idil ha ahaato midaan misirta noocyadeedu idil digirta waxay noqonayaan in ay kamid yihiin proteinska animalka laga helaa. waxaa kamid baashan chickpeaska loo yaqaano ama xumuska loo yaqaano. waxaa kaleeto kamid ah baashan loo yaqaan quinoa oo hadeertaan dalka la keeno waa geed borotiin iyo fiber isku leh. marka hadda sheegna intaas intii borotiinka laga helaayay waxaan sheegaynaa marka waxyaabihii fiberka laga helaayay. fiberka maxaa laga helayaa wax kasta oo baalkooda ah ku cunno. cunto kasta baalkeeda aan ku cunno ha ahaado qamadigi waana qofka inuu hubiyo inuusan calooshiisa dhibeynin, masagadi, galeeydi waa dalagga dalka anaga banaanka waxba kamaanan doonin dalagga dalka oo idan isticmaaleyna. shaciirkii oo asaga xataa wadanka laga helo baalashiisa uu ka badan yahay kan kaleeto waxaasoo idil marka qofka baalashooda ku isticmaalo waxaa haysanaa cunto baalal leh oo macnaheeda laga wado cuntadeena fiberka lahayd, cuntadeena suuqa taale caadiga ahayd, cuntadeena dalka ee aanan qarashka badan aanan u baahnayn. waxaan fiirinaynaa hadeertaan haddana cunto borotiinka iyo fiberka isugu jirta. chickpeaska hadda aan sheegayno xumuska ah ayaa kamid ah. waxaa kaleeto kamid ah quinoadan hadeertaan aan sheegayno ayaa kamid ah. taas hadda isku heshidna fiberkiina waa heshay, waxa kaleeto heshay borotiinkiina waa heshay. baalkan chia seedka la yiraahdo package waay, package perfect ah waay. borotiinkiina wuu ku jiraa, fiberkiina wuu ku jiraa. labadii faa'iido u baahneenna waa ka wada helaynaa. intaas waa inta dalka laga helayay oo ahayd in qarash badan aysan u baahnayn qof kasta intaas haduu intii loogu talagalo uu ka qaato ee aad u anfacayso. okay waxaa tiri hilibka idaha ah gadaal noogu dhig. si fiican hilibka idaha waxaan dib ugu dhiganay waxay tahay waxaa la sheegaa idaha bilcaks inuu kamid yahay hilibada la cuno kan ugu fiican. laakiin mushkilada xageena waaye Soomaalida weyga hilibka idaha ay u isticmaasho totally qalad waaye.
dufankan faraha badan leh ee inta barida soo shiilan aan qaadanayna qaandada ma garan kartaa halaha calorie ee qaandadaas ay ka kooban tahay ee uu qaato qof da ah oo ama sokor qaba ama dhiikar qaba ama xididadiisa mushkilad ay qabaan ama cholesterolkiisa ama triglyceridekiisa uu caali yahay how uu risk gareyn karaa qofkaas caafimaadkiisa macnaheeda markaan dhahayna shaygan waa la qaadan karaa caafimaadku u fiican yahay macnaheeda maahan in ay xadka ka bixisid even waxa caafimaad kale ee fiican hadaa xadkooda ka bixisid cudurka ayaga keenaya marka waxaan leeyahay idaha qalad ma leh annaga qalad kale weeyga annaga u isticmaalno oo wuxuu u noqdo in aan ka bixino xeerkayaga caafimaadka ama qofka nutritionka markaan direeno inaan ka bixino idaha laana weeyga qaldan ee loo isticmaalaya keen ee ma ahana qofka haduu si sax ah inta loogu talagal uu ka qaadanayo waxba meesan dhibi lahayn laakiin weeyga u isticmaalno qalad waaye mana nooga tirsan cuntooyinka dadka aan kula talino anoo weli ka dhex bixinin cuntooyinka li'annahu waxaa jiro hadallo badan oo dadka dhexdooda tashwiish badan ku abuuray jeclaan lahayna maanta in loogaga jawaabo su'aalahaas anoo dadka isku dayaya inaan matalo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jira dad badan oo influencer ah ama social media ku jiro dietka ka hadla exercise-yada ka hadla dadkana kugula taliyo tusaale ahaan inaysan mooska cuni karin inay liin macaanta cuni karin inay sokor tahay fructose-kaas uu dhibaato u keenayo sidoo kalena waxaan rabaa inaan dib ugu laabano hilibka ariga li'annahu hilibka arigu ama hilibka gaduudan dadkeena waxaad moodaa in zaa'id loogu diray oo chickenka iyo kalluunka keliya loo tusay inuu hilib wanaagsan oo waxtar leeyahay kaas laakiin intaadan ku bilaabin fruitska wax ma naga dhihi kartaa ma sax baa in sida ku soco waa nagala cabsiye laakiin cabsida waxbaa ka jira warka la sheegay waxbaa ka jira warka la sheegay sida waxa uu jiraan fructose markaan la fiirino barbar dhigno glucose wuxuu u baahan yahay insulin raba si beerka loo geliyo idin uu ka qaadanaya halka fructose aysan insulinka waxba aysan ka rabin waxba idina kama rabto beerka toos u abaaraysa laakiin taasi macnaheeda ma ahan in fruitiska ay joojinayno macaadinta iyo mineralska ay sheegayeen iyo antioxidantiga wixii ay sheegayeen oo idilba fruitiska laga helaa marka maxaan sameynaynaa si caqli leh mindful eating waxa la dhahan sameynaynaa moderation isticmaaleyna macnaheeda maalinka qofka intuu u baahan yahay uu qaadanaya asagoonan isdabaalinin oo wax badan aanan ka qaadan macnaheeda ma ahan minerals ay leeyihiin macaadin ay leeyihiin waxa rabtid ka qaado no mooska duusan aad u bislaanin uu fiican yahay waa qaadan kartaa intuusan calaamadii madmadoow aysan ka soo bixin sokor uu noqday markaas moos maahan oranjadaadi ama waliinta burtuqaalka had waa qaadan kartaa hal xab maalinkiis enough shardi aan ugu xiran maxaan dhahnay adoo calooshaadu ay baahan tahay un ha qaadanin adoo calooshaada ay baahan tahay fruitiska ha ku bilaawin ayaga laakiin si moderation haddaan u qaadano qayb muhiim ah waxay ka noqonayaan cuntadeeni antioxidantigi mineralski macaadinta inta u baahneenba fruitiska way leeyihiin laakiin maalinka badisid warkii la sheego oo ahaa inay dhib yihiin markaas waa markuu imaanayo laakiin wax kasta moderation aan ka dhigno nabadan kuna maasha Allah anigu naftirkeyga moderationkaas iyo qofka inuu istraagareeyo waa waxyaabaha inta badan aan dadka kugula taliyo ama aan tusaale ahaan cuntooyinka anaga aan cunno kale hadday noqon lahayd cuntooyinka burka ka samaysan hadday noqon lahayd bariisku anigu inta badan waxaan jeclahay qofku inta jirkiisa u baahan yahay in uu ka barto okay adoo wax yar noo soo koobaya hilibka gaduudan iyo dadka tashwiishka lagu furay iyo cabsida ay ka qabaan maxad ka leedahay hilibka gaduudan labaan u kala qaadayna qofkaani ma qof xanuunsana oo borotiinka jirkiisa uu dhibaayo gouts ama cudurro lagu soo sheegay miya ma qof mandhiciradiisa xanuunsan yihiina mase waa qof caafimaad qaba hadaa caafimaad qabtid hilibka gaduudan dacwo kuma qabaad ma dacwo ma qabtid oo qaadan kartaa shardigeeni markasta wuu yaalaa maxaan dhahnay moderation shardigeeni markasta wuu yaalaa moderation waaye waa qaadan karnaa hilibka gaduudan laakiin qofka xanuunsan ee lagu soo sheegay inuu gout qabo in mandhiciradiisa borotiinkan culus aysan qaadi karin qofkaas oo kale waa la gartay medical condition ay jiro oo qofka ka reebaya hadaa caafimaad qabtid inta moderate gareyn kartid waa qaadan kartaa okay marka su'aashan qof Soomaaliyeed oo dalka jooga amaba dibadda ku nool dabcan sidaad ogtahay dietyo tiro badan yaa maanta suuqa yaala oo ay kamid tahay dietkan keto la dhaho oo 80% fat ka samaysan carbohydrate kana uu 5% yahay sidoo kalena protein kana uu 15 ka soo harayo uu qaadanayo carnivore diet la dhaho dabcan asagana xooga la saarayo waxyaabaha xoolaha ka yimaada kaliya in la cuno haday hilib noqon lahayd iyo haday ukun noqon lahayd qofka Soomaaliga marka hadii uu rabo maanta 2026 inuu miisaan iska rido cunto noocee kugula talin lahayd ma diet jiro aad kugula talin lahayd mise dietyadan caadiga low carb iyo muxuu ahay high protein diet ku iska gala
bal adigu ka dhakhtar ahaan qof ku yimid oo Soomaaliya ku nool raban inuu miisaan iska rido sida ula talin lahayd waa mahadsan tahay qof Soomaaliya jooga ama qof banaanka jooga nala soo xiriiray raba inuu miisaankiisa lumiyo maxaan kula talin lahaa horta waxaa jirta wax loo yaqaano individualized qof kasta in diagnosiskiisa si gaar ah asaga loogu sameeyo la fiiriyo qofkan talo maxaa ku haboon kala qaybina bal dadka aan dhahno qofkan waa wiil dhalinyaro ah caafimaad qaba miisaankiisa inuu dhimo u baahan dhibna wax aanan ku qabin waa fiirinayna qofkan diet ku haboon qofka caafimaadka qaba waa ay diet aan sii karnaa kaas ma عندنا مشكلة aan u eegna marka qofka gabdhaha aan u imaano gabadho kale talo ma gabadhan ma gabar waqtigeedii ku jirta miya maxaa la dhahay waqtiga aging bearingka ku jirta miya maxaa la dhahay waqtiga oo dhalmada ku jirta miya daadkeeda gooni waaye maamadan menopause miyay noqotay ma loola dhaqmi kara sida dadka kaleeto waaye hadeeba menopause ay tahay waxay u baahan tahay in la fiiriyo xaaladeeda menopause-ka hadayd ayada ku haboona la siiya haye waxaan kaleeto fiirinaynaa gabadhan ma caqabado kaleeta haysto caafimaad PCO miyay leedahay hormonal imbalance kaleeta miyaa jiro qof kasta marka waxaan sameynaa dietka asaga ku haboon aan badanaa sameynaa laakiin dietka markasta ugu fiican waxay tahay anagoo aanan adeegsanaynin dietyada extreme-ka ah sida hore u sheegnana qof kasta dietka asaga ku haboon loo adeegsado dietka markasta ugu fiican ee aan isticmaalnaa wuxuu yahay midka ah high protein moderation high protein kan ah low carb iyo moderate fat kan ah kan ugu fiican kaas waay leeno jirka qofka hadaan mar ka wada goyno carbohydrate-ki oo energy-gi oo ahaayo dhan baad ka wada goyno waxa imaanaysa hadhow qofka markuu u soo noqdo carbohydrate-kiisa in si ay ku jirto naham amaba si oo cuntada inuu san weligiis aragoo kale qofka inuu u cuno marka maxaan sameynaynaa jirkiisa la dagaalayna carbohydrate-ka qeybaan ka siinayna laakiin qeybta caafimaadka qabta complex carbohydrate-ka aan dhahaynay ayaan qofka siinayna macnaheedu xataa badankiisa qolof uu badan yahay jirka intuu u baahnayo ka qaadanaya inta kale as fiber ay noqonaysaa faa'iido kale ay noo haysaa marka badanaa kaasa isticmaalana inkastoo aan sheegno qof kasta in aan u fiirino maxaa ku haboon xaaladiisa caafimaad tahay groupku ka tirsan yahay ina qof kasta saas u fiirano haduu qofka high cholesterol yahay oo kaleeto dietkiisa waa gooni hypertensive haduu yahay oo kaleeto gooniya loo controlaya sokor haduu qabo gooniya loo controlaya marka waxyaabaha isku ma jiraan qof kasta iyo xaaladiisa caafimaad ay ku xiran tahay weyga dietka aan ugu sameeyno okay marka waxa ka hadashay eray waxa taabatay aad tiri menopause dadka ma sharxi kartaa si fiican menopause waxa laga wadaa hooyadii dhiiggeeda ama periodka ama caadadii ee dhamaatay ama 50 ka weyn ama aysan 50 gaarin periodkeedii uu go'ay ayaa laga wadaa menopause marka maamooyinka si gaar ah loola tacaamulaa dheecaanka ugu muhiimsanaa estrogenka ahaayo howl badan qabanayo lafaheena ilaalinayay wadnaheena ilaalinayay meeshuu ka baxay marka hadeertan waxay noqonaysaa si gaar ah in loola tacaamulo haday u baahneed inay miisaan dhinto iyo haday u baahneed inay miisaan kordhiso iyo haday u baahneed inay caafimaadkeeda ay ilaaliso okay masha Allah ugu dambeyn marka hadii maanta qof na daawanayo 2026 raba inuu miisaan iska rido option tiro badan ay hor yaalaan hal talo oo aad siinaysid ma jirtaa oo 2026 uga faa'iideysan karo inuu miisaankiisa ku guuleysto inuu iska rido si fiican talada aan siinaya waxay tahay walaal la xiriir qof ku takhasusay waxa aad rabtid caafimaadkaaga ilaali taas waa talada aan siinaa caafimaadkaaga ilaali miisaankaaga waxaad ku dhimi kartaa si caafimaad leh adoon lafahaaga dhibin wadnahaaga dhibin jirkaaga starvation gelinin malnourish noqonin mineralskaaga dhimin macaadintaada dhimin lafahaaga burburinin ayaa miisaankaaga dhimi kartaa waliba adoo adeegsanaya cuntadeena dalka si moderation leh si caafimaad leh si horumar leh masha Allah waan ku laabanaa su'aashaas tusaale ka soo qabo qofkan ma awoodo inuu coach qabsado mana awoodo qof nutritionist ama dietitian inuu u tago hal tala ma jirta aad siinaysid oo aad isleedahay alla ilaahay taladaas haduu raaco qofkan adoonan wax diagnosis sameynin wax tala gaar ah aan bixinin si tala general ah oo qofka uu uga faa'iideysan karo 2026 inuu على الأقل isbedelka noloshiisa uu u baahan yahay uu ku tilaabsado si fiican oo si karnaa waxaan leenahay cuntada dalka oo noqono anagoo u isticmaaleyno si mid kasta moderation proteinka hadda tan aan sheegnay qayb fiican oo muhiim ka qaadanayo carbohydrateska aan sheegnay qayb ka qaadanayo asagoo aan badinaynin si moderation leh si caqliyeysan si control u qaadanayo just qofka hadii cuntadeena dalka u soo noqono sida saxda ahna u qaadano proteinka qayb muhiim ka qaadano carbohydrate complexka ka qaadano fiber ka qaadano fruitska intaan sheegno moderation ka head ka qaadano socod iyo ama exercise qofku wuxuu heli karana ku daro
biyo badan nacabo waxa isleeyahay waa maxaa la dhahay daad dhameystiran qofku waxaan siinay barnaamij dhameystiran oo intaas haduu sameeyo miisaankiisu u dhimaayo waa sheegnay moderation oo aan ka wadno si dhexdhexaad ah wax kasta xadkooda ha ka badanin ifan haday tahay cuntadeena dalka waxa kaliya adeegsanayna waxay tahay cuntadeena dalka si sax ayada ugu noqono socodka aan ku darno cuntadan laga dhigaayo westernation ka loo yaqaan cuntada ina western ka dhigayno ah in cuntadii banaanka ka imaada qaadanayno in la yareeyo u baahanahay maalinkii cuntadaas imaado cudur oo dhan yimid marka soo noqda cuntada tayada lahayd soo noqda si moderation u qaata dhaqaaq sameeya sokorta yareeya miisaankaaga uu dhimaya si caafimaad leh degdegana joojiya waxa leenahay wax aadan ciyo u arkeenin degdegana joojiya oo ah miisaankiina ciyo dhimayna u baahan tahay ما شاء الله horta waxaan mareynaa gabagabada barnaamijkeena waxaan rabaa insha Allah taala hal su'aal ugu dambeysay inaan ku weydiiyo ragga iyo dumarka isku nooc miisaanka ma u ridi karaan waxaad aragtaa mararka qaar qof baa talaf bixinayo taladaas haday rag ku socotay haday dumar ku socoto dadku isku nooc ay u qaataan ragga iyo dumarka maadaama Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku jir uusan naga dhigin oo ay hormoonaadkina ay kala duwan yihiin ragga iyo dumarka hal nooc miisaanka ma u wada ridi karaan su'aasha jawaabteeda waa maya gabdhaha jirkooda waxa ku jira dheecaano fara badan oo hawl muhiim ah haddii miisaankooda aan dhahno sida ragga ha u ridaano dheecaanada gabdhaha qalqal ayaa ku imaanaya already ayagoona miisaan dhimin ay dheecaanadooda qalqalsan yihiin marka waxaan kula talinayaa waxay tahay gabdhaha idinkoo ilaalinaya caafimaadkiina dheecaanadeena muhiimka noo anagoo ilaalinayno waxaan leenahay weyga nimanka miisaanka ay u ridaan inaysan u ridin isku talana aysan qaadanin aywa nimanka dheecaano way leeyihiin laakiin dheecaanadooda sida kuweena waa effect growayaan uma effect growayaan ifan haday effect growaan waay laakiin hablaha ama gabdhaha waxaan kula talin lahaa in ay adeegsadaan ama ay markasta la xiriiraan ama macluumaadka ay qaadanayaan ay ka qaataan meel saxan ayagoo caafimaadkooda ilaalinaya laana cawaaqibka ka dhalanaya in dheecaanadaada ama hormones imbalance uu kugu imaado markasta way adag tahay tamankeedan anaga ayaa dafcinayna Dictoreso Firdawsa Cabdisalaam pointigan muhiim jiddan waay xanuunna waa inay hoob su'aal oo faraxa oo xanuun ah weydiisay maya thank you very much because waxaan ku weydiinaa inta badan commentiyada ka soo arooriyay horta aadan kaaga mahadcelinaa Firdawso waqtigaaga iyo aqoonta aad nala wadaagtay dabcan waxaan is leeyahay qofka maanta xaq u lahaa ama loogu talagalay in uu arimahan ka hadlo inaad adigu tahay waana sababta aan barnaamijkeena markii ugu horeeyay aan qof aan intaan isla soo fariisano oo aan barnaamij hal mar aan soo wada gudbino qofka ku guuleystay ama ka soo muuqday channelkeena waa adiga aadan kaaga mahadcelinaa dhammaan asxaabta waxaan idinka codsanayaa insha Allah taala linkiga dictoreesada waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose ee channelkeyga qof walbo idin kamida hadii aad rabto si individual inaad ula xiriirto hadii aad rabto inaad channeladeeda follow garayso TikTok isticmaasha YouTube hadii ku soo biirtay hadii Ilaahay yiraahdo de waana wax free ah oo aan wax lacag idin kaaga bixinin qof walbana oo maanta idin hortaagan ee wax ku sheegayo macnaha ugu weyn oo kaleeyahay ma inuu views ka helayo 80% nabad ogtiin views ka dalkeena inta badan inuusan wax lacaga dadka aysan ka sameeynin laakiin waxa inta badan la raadinayo ee tahay dadku in la baro sida saxda ah ay cuntadoodan u cuni lahaayeen caafimaadkooda u ilaalin lahaayeen at the same time na iyagu caafimaad qaba ee miisaan iskaga ridi lahaayeen Firdawso waan gabagabeynayna walaashay khayr Allah ku siiyo waqtigaaga aad noo soo hurtay maxaad kama dambeyn ku darsanaysaa horta marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa coach Sabriye oo fursadan aad qaali u ah siiyay oo dadkana ay ku baranayaan ay ku ogaanayaan waxyaabaha saxda ah halka meesha aan ka bixinayno waxyaabaha qaladaadka ah ee dadka social media badan ay kala socdeen waxaan rajeynayaa in marar badan aan ku kulmi doono showyo noocan ah ama podcast-yo noocan ah ama laafiyo noocan haduu Ilaahay yiraa waxaan kale ku talinayaa waxay tahay sidoo sheegay coach Sabriye in maxaa la dhahaye hawsha meesheeda laga sii wado haduu Ilaahay yiraa talooyinka la idin siinayo ee freega ahna aad qaadataan dadka u baahanna aad gaarsiisaan oo alla wadaagtaan thank you very much insha Allah taala barnaamijkeena inta ku soo gabagabeynayna hadii Ilaahay yiraahdo ma ahan markii ugu dambeeyay aan dictoreesada soo qabanayno sidoo kalena waxaan isku dayeynaa insha Allah taala wax walba oo aan caafimaadkiina iyo noloshiina wax uga bedeli karno inaan idin la wadaagno salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh